cabdullaahi bni rawaaxa radia allaahu canhu xaaskiisa dhabteeda isagoo ku jiifa ayay lilma ka daadatay markaasay aragto way la oyday iyadiina markaasuu indhaha kala qaado wuxuu ku yidhi maxaad la ooyeysaa markaa bay tidhi dee adoo ooyey un baan ku arko anna waan kula ooyey bay tidhi markaasuu anigu waxaan xasuustay kalaamka ilaahay tabaaraka wa tacaala fii suurati maryam wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya ثuma nunaji aladiina ataqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya anu waxaan xasuustay qowlka ilaahay uu ilaahay leeyahay mid kastoo ininka naga mida ma jiro hadduu jirase jahannamo ayuu ku aroori doonaa baa ilaahay yidhi ثuma intaa kadibna nunaji aladiina ataqow kuwii adduunka dusheeda ku soo cabsooday ilaahay kaga soo baqay waan badbaadin doonaa baa ilaahay yidhi waan nabadgelin doonaa wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya daalimiintana iyakoo jilba jooga ayaan halkaa kaga tegaynaa baa ilaahay yidhi dhabtuu ku jifaa innaka maanta khafladda inagu dhacday qaari sood fiican oo qur-aan macaan gadaashiisa innagoo ku tukanayna ayaan adduunyadeennu xisaabinaynaa oon meheradeennii ka fikiraynaa iyakuna xaasaskooga dhabtooda iyakoo ku jiifa ayay jannadii aakhiradiiyo naarta xasuusanayeen nin sheekhoo maalin darsi marinaya ayaa xadiidkii wuxuu markaa ardayda u dhigayey waxaad tidhahdaan reerihiina markaad la galmoonaysaan ducadaa xasuusta nebiga ayaa yidhi akhristee bismi illaah allaahuma jannibna ashaytaan allaahuma jannibna ashaytaan wajannib ashaytaana maa rasaqtana markaa nin ardaydii ka mid ahaa oo sheekh ahaayoo reero badnaa baa yidhi sheekhow raggu halkaa markay marayaan besinkaba ma haleelaan buu yidhi iska daa ducadaasi halkaas xaaskiisii dhabteeduu ku jiifaa wuxuuna xasuusanayaa naar waa lay sheegay buu yidhi inaan naar ku arooraayo laakiin ma ka baxayaa taasaa ii kala caddayn buu yidhi taasaa ii kala caddayn sayidina cumar alfaaruuq radia allaahu canhu mubashir biljanna waa ninkii nebi maxamed uu lahaa low kaana bacdii nebiyan lakaana cumar qasri jannada ku yaalla ayaan galay buu nebigu yidhi xawraa baan ku yidhi xawraayee qasrigan ayaa ilaahay ugu talagalay waxay tihi nin qoraysh ka dhashaa nin carab ka dhashaa loogu talagalay anigaa carabiya ma cid kalaa ha jilibka quraysheed buu ka soo jeedaa anigaaba qurayshiya ma cid kalaa ha ummadda muxamed buu ka mid yahay anigaa muxamede ma cid kalaa ha waa cumar binu khadaab bay ku tidhi cumar aad garanaysaan maqaamkiisa iyo darajadiisa khayru nnaasi buu ahaa bacda annebiyiina waalmursaliin ilaa abi bakri sidiiq mooyaane khalqiga kale ilaahay abuuray baa layidhi nebiyada iyo mursaliinta iyo abubakri sidiiqunbaa ka fadli badnaa kaasaa maskiidka nebiga soo galay wakhta saxar buu soo galay wuxuu arkay inan yaroo shaaba oo qaariya oo ku tukanaya maaragtaane suuratu tuur qiyaama leylkii bacda qiraa'ati alfaatixa markaasuu cumar istaago uu dhegaystay watuur wa kitaabin mastuur fii raqin manshuur waalbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almaszuur ina cadaaba rabbika lawaaqic halkaa markuu maraya cumar dhulku ku dhacay faxamaluuhu ilaa beytihi gurigiisaa loo xambaaray 20 maalmood ama bil ku dhowaad buu xanuunsanaa cumar baa la yidhi dadku kamaysan warqabin xanuunka cumar meeshuu ka yimidina kamaysan warqabin qulubtooda ayaa noolaato jilcday